بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشر كي لبئي طبنات كميدة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. waxaan ku dhex jirnay baabkii sheekh uu kaga hadlay tabarruka, gaar ahaan waxaa dhexda noo joogay masaa-isha ee baabka uu ka soo saaray sheekh raximahullahu tacaala. waxaan joognay marka masalada 17. wuxuu yidhi sheekh raximahullahu tacaala: almas'alatu 17 alqaacidatu alkuliyatu liqowlihi inaha sunan. waxaan baabka ka faa'iidaysanaynaa buu yidhi ama nusuusta soo aroortay alqaacidatu alkuliyatu, qaacidada guud ee wax walba ay soo hoosgalayaan, oo ah maxaa intee laga qaadanaya qaacida liqowlihi sala allahu calayhi wasalam baa laga qaadan. nabi yidhi inaha sunan, inahaa iyadu waa assunan wey, wadooyinkii wey, sunan wey bimacnaa turuq wey waayo. oo markuu nabigu ishaarayo calayhi salatu wasalaam ummaddan inay raacayso ummadihii kale wadooyinkooda inay raacayso. 18 مسألة 18 ka faa'iideysan waxa weeye anna hada warkan uu nabigu sheegay calayhi salaam waa tusaale oo min a'laam an-nubuwati wa calaamad iyo astaam kamida min a'laam an-nubuwati, nabinimada calaamaadkeeda, likownihi ahaashidiisa ayuu caalam ku yahay waqaca uu dhacay kama akhbara siduu nabigu u sheegay calayhi salaam. arrinta nabigu ka hadlay waa arrin ku tusinayso in uu nabigu calayhi salaam nebi uu yahay wey, nebinimadiisana inay dhab tahay, run tahay, wax ku tusinaya weeyaan. maxaa yeelay siduu asaga u sheegay bay arrintaa u dhacday. oo latattabicanna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin ilaa akhiri alxadiid buu sidaa u sheegay, siduu nebigu u sheegay calayhi salaam bay u dhacday. in badan oo macnaha dadkii ka mid ah inay yahuudi nasaare iyo wixii lamida daba galaan oo ay wadooyinkooda raacaan way dhacday. marka waa arrin ku tusinayso nebinimada calayhi salaatu wasalaam inay xaq tahay ku tusinayso wey. 19 مسألة 19 أن كل ما ذم الله به وحكسوا ألا وعيبي اليهود يهود وكعيبي إيوه نصارى وكعيبي في القرآن كالحديثة أنه لنا أننا ونوء هذا، بمعنى أننا عيب ونقويه وهدان صمينه. sheekh waxa uu leeyahay raximahullahu tacaala wax kastoo ilaahay yuhuud uu ku dalaacay oo lagu ceebay annaga iyo nasaaraba qur-aanka kariimka dhexdiisa lagu sheegay ama sunnadaba lagu sheegay, nabigu calayhi salaam sunnadiisa lagu sheegay saxiixada, annagana wuu noo sugnaado. bimacnaa qeybo annaga naga midna hadday sameeyaan ceeb iyo lama arkaan iyo dalaacayn ayay kala kulmayaan wey. أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى وحكسوا إله يهود ونصارى وكعبي في القرآن الكريم القرآن كدحديثة أنه لنا أننا ونوء هذا عيب ونويه أنه لنا بشيء هالكاس إن الدت كردن وكوضوا أيام ظاهر كما قلنا لك سيدا لقى موضع وحاويا وحال وضع وإرادة التعبير الكلي وإرادة البعض وحلو يقانوه تعبير البعض بعض معنى تعبير الكل كل إن مجع العبره وحجود إن العبره، لكن وجودنا أي تهي وحاول قيب له وجوده. سيدا آيات القرآن كعمل إلا متى وإلهي ريام عشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم. الجن والإنس كلهم كوديو ميين إيمان رسول منكم، رسول إذن كإن كترسان. مركا الجن والإنس رسول شيء ضدك ودقي سابق كمده. مركا بعض الإنس بالك وضع. marka sheekhu markuu leeyahay annagana wuu noo ahaaday arrintaas oo dalaacayna ceebeen bay nagu tahay, macnaheedu wuxuu ka wada qayb annaga naga mid wey, qayb annaga naga mid hadday sameeyaan arrintaas ee dadka oo dhan ma wada sameynayaan way. 20 مسألة 20 أنه متقرر عندهم أنه شأن متقرر وحمقرها أصغنا عندهم عند الصحابة أكتوضو وحكسغنا أن العبادات كمبناها مبنى هذه الاسمات إنه على الأمر أمر كل شيء، بمعنى
وحليه شيخ وحام أكتوض مقرر كأهاي صحابة رضوان الله عليهم يا سلف كيف كدن بيبا عبادات كإن وياهي ماشى اللي قلسا عدة ماشى لقى قادنا الأمر إنه يحي إلهي سبحانه وتعالى وحدت كفري وياهي أمر وجوب هالنقض أما أمر استحباب هالنقضين كاس با عبادة اللي قلسا كرا ولا قادن كراوي وحد إلهي دت كفرين سبحانه وتعالى شرعنا يوجي ديننا كان أمر من نقون معناها عبادة من نقون كره وياه معناه ذو حاوي ومسألة الله العبادات التوقيفية عباداتكم وحي مركو قوي كذب وتوقيفي ويان وتوقيفي وين أنه مقرر عندهم أكتوض أن العبادات مبناها على الأمر مركب عد هذه عبادة اسكف جيحن كرتو وأيضو سيدا يلقوا من معناها أرقت سيدا لقوا من مركب اسكي يلي كرتو وح عبادة كصمين كرتو ما جرتوا يا ردنا سادة رد النبي وكدي عليه السلام محييني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة مركب قفكي عبادة اللي يماضو waxaa laga codsanaya marka hore la weydiinaya inuu daliilkeeda keeno keen baa la daliilka ka qaadatay alaan cibaadaadka waxaa laga qaataa alkitaab sunna laga qaataa min alkitaab wa sunnati baa laga qaataa way asalkoodana waxa way alhadr wal man'u way marka ninkii yira cibaadadan way banaanta waana la sameyn karaa sheegan ilaahay baa looga dhawaan karaa waxa la aayadii xadiiska tilmaamay bal keen baa leeyahay haduu la yimaado waxa way fal amru waadix basida la rabi hadii la imaan way شيء بدعة ونقرأ وحلله كاستاج أيام مركال له أما معاملاتكم أصل كود أيجو حويان الإباحة وي قف كي يراه شيء معاملة ما بنانه كاس الدليل لويدنا لكن كي وبنا شيء وبناي نكادوره دليل لم ويديو وين فصار مركو حو هذا بأرنك الشيخ فيه حديث فصار وحاء هذا فيه أرنك التنبيه برارجع على مسائل القبر مسائل القبر اللي سكوي دي أضون قبر مركل الجليل اللي سكوي ديو والاسكو براروجنا أي أهاتي فصار فيه تنبيه على مسائل القبر أما ربك فواضح واسكعاد يا يقول ربك مسألة وصار لحريكة وقصده وقصوية واسكعاد يا وايم وبمعنى أنه لا رب إلا الله تاسع مرك حديكي لا يقر تقويا وأما وأنا مسألة معنى الاسكو يدين دون قبر قوي وأما نبيك وأما من نبيك فمن إخباره بلغقاتي نبيك كور من علم الغيب علم الغيب كو مركا وكور رمي وين فمن إخباره صلى الله عليه وسلم على قات النبي مركا وحوي من علم الغيب كو مركا وكور رمي يا مركا على قات يقول والنبي مركا ويري عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الغذوة بالغذوة حديك معناها أو شبرا بشبر كاس ووحشي علم الغيب والنبي وكور رمي عليه الصلاة والسلام وين ومركا وحي أهان الله شيء هل كاسا مركا النبي نبدنا ayaa laga qaatay buu kuleeyahay way oo inuu nabi yahay ayaa halka ku caday wa amma ma diinuka man diinuka sidoo macna xadiika looga qaatina famin qawlin baa laga qaatay ij'alana ilahan ila akhirih maadaama ayagu marka ij'alana ilahan ay dhaheen ilah bi macna ma'luh wal ma'bud baa laga wadaa halkaas marka laga qaatay way al hadiyatu wal 20 mas'alada konton iyo labaad macraba 21 anna sunnat ahli alkitab أهل الكتاب كسنة ضد طريقة ضد وضد ضد مذمومة ومثل عيبي والعاي كسنة المشركين سيدا طريق المشركين السنة بمعنى الطريق وصمرا ومركا أما المشركين هنغضين أما يهودي نصارى هنغضين مد كتاب لسي ميدان كتاب لسينين رمانتو طريقة ضد وضد ضد ومد مذمومة ومركا مذمومة والعاي وهي الثانية والعشرون مسألة لباتين لبعضهم كفايسين بابكو عوي أن المنتقل منك كسو جوري من الباطل باطل كسو جورو كسو وريجي الذي باطل كسو اعتاده وكعادة قلبه لا يؤمن وياه لجماعة من نقنايو أن يكون في قلبه تحديث إنه هذا من تلك العادة عادة حاجة عفوا أن يكون من في قلبه تحديث إنه بقية هراء ومن تلك العبادة من عادة كهذا لقوله أنا لقى قادنا أيدهن ونحن حدثاء عهد بكفر أنا وقال لماذا كعصب حكوا لي قفك شيء باطل وحمان كل حجري كسو جوري كسو وريجي باطل كذا حمان تصل قلبي جيسنا مرة معناها كبر حسمي وكعادة دكتور دقن وكدكتور سمين جري آمن لجمع النقانا يبوري إنه قلبي جيس وري وحن شيء جورات كسو وريجي ولي كضم بيو محيا لمركز شيء سمينا ين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة محرر إيو محالي لها مركز اجعل لنا ذات أنواد المركز لهاين وحيدا ونحن حدثاء عهد بكفر marka shayga gaalnimada ay mar hor ku soo barteen
waayahay marka maxaa la yiraahdaa ashyaada noocaas ah ee qofku marka hore uu ku shaqo dhigtay oo muddo badan soo sameyn jiray si fudud uma baxayaan si fudud marka maadaama ay arkeen geedii ay kufriga iyo gaalnimada xilliga ay ku jireen ay garan jireen maadaama ay arkeen isla markiiba qalbigooda wuxuu ku jiray waa gocdeen oo marka way maafkan way ka dhawaaqeen wuxuu yiri anal muntaqila midka kasoo guuri min al baadili alladhi baadilka i'taada qalbigiisa uu ka caada dhigto ka dhaqanaytay la yu'manu lagama aamino an yakuna waayahay inuu ahaado fi qalbigiisa baqiyatun hara ama qayb yar oo macna ku hartay min tilka al caadada kamid qawlihi ya laga qaadana oo wa nahnu hudatha aadi bi kufrin ay noqdeen qofkii marka shirki iyo waxyaalaha noocaas iyo qurafaadka iyo qabuuraha laga daba wareega iyo maxaa la yiraahdaa makhluuqaadka loo dhawaaqdo iyo wax nooca ka dhaqan dhigtay hatta hadii uu tawxiidka saxda u qaato wax baa ku dambeynay si fudud macnaha kaga ma dhamaanay taasa marka laga qaatay wax baa ku haray mar walba waxba soo goconay marka waan baabu ma jaa wixii ku yimid buubiya fi dhabh gowrac li ghayri ilahi cidaan in loo gowraco waaya cidaan ilaahi ahayn subhanahu wa ta'ala in loo gowraco asna waa gowracan waa cibaado anwaa'ul cibaado ka tirsan yahay ilaahi ghayrki in loo leexiyana waa shirki weey waaya gowrac marka wax la gowracayo culimada marka waxay u qaybiyeen laba qaybood bay u qaybiyeen kan koobaad waxa weeyaan in wixii aad gowracdo taqarruban wa ta'dhiman adigoo cid aad u gowracis ugu dhawaanayo adigoo ku weyneynayo waaya adigoo macnaha waxa weey ajir ugu raadinayo kaas hadaa sida macnaha ka ilaahay baa loo gowraci karaa hadii marka cid kale sida loo sameeyo waa shirki akbar oo mukhrij min al-milla islaamkana laga baxayo waaya qodobka mid waa midka labaad in ilaahay qeyrki loo gowrac laakiin waa farax iyo maamuusid iyo bis taqarrub maaha looga dhawaan maayo kaawa iska banaayay culimadu marka hadda mar walbaba niyada lagu gowracayo iyo macnaha qaabka loo gowracayo ayuu marka ku xiran yahay waay maxay yeelay baa iska dhici martiba ku iman karto martida in loo gowraco ama la maamuuso wax iska fiican way laakiin wax ayaga looga dhawaana maaha wax ayaga ajir looga raadinayana maaha waa iska maamuus sidoo nabigu yiri cali sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu marka qaarkood baa dhici kartay hilib iskaga baahatay inaad neef iska qalato wax iska caadi way waxyaalahaas laga hadli maayo laakiin taqarruban cidi loogu gowraco waa yahay taa waa shirki weeyaan hadii marka ilaahay qeyrki loo leexiyo baabu ma jaa wixii ku yimid uu baa fi dhabh gowrac li ghayri ilaahay qeyrki loo gowraco oo min al waciid wixii waciid goodi ku soo arooray iyo qawli ilaahi ta'ala baab ilaahi wuxuu yiri qul waxa tira nabiga inna salati aniga salaadayda an tukuna wa nusuki aniga gowracayda iyo maxyaaya noloshayda iyo mamati geeridayda lillahi alla usugnaadeen dhamaantood Allah iskale Allah soo rabbil alamin unka rabbi la sharika lahu wax la wadaagana ma wabidalika umirtu sida ayana lay farib waan inaan macna salaadayda ilaahi u gooniyeel oo gowraca ilaahi u gooniyeel oo noloshayda ilaahi u gooniyeel oo wax oo dhanba aan ilaahi kaliya macnaha siiyo sida ayaa lay farib marka dadka intooda badan way fahansiin wayna yaqaanaan in salaada yani cid kale ilaahi loogu darin laakiin meesha balaada ka jirto waxa gowrac way qaar ba jin u gowracayo jin bay u gowracayaan way qaar ba qubuuro wax u gowracayo maxaa yeelay waxyaalaha soo dhan marka waxa way aad ugu baraarugsan sababtoo ah waxa haystaan cibaadadaba inay salaad iyo soon iyo xaj iyo zakka kaliya ay tahay ku kooban tahay bay u haystaan way cibaadaduna waa tan hore u soo sheegnay oo waxa weeyaan ism jaami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al ila akhirih way marka aayad waxa loo keenay waxa waa nusuki way ay dhabxi way ku fasireen culimadu marka waxa weeyaan tafasiirtana sida ayaana lay fari way bidalika umirtu waayay وبذلك أمرت وبذلك اسم معناها اسم جار مجرور قال سهر مري وحاء فايدين الحصر والقصر فايديه والتخصيص بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين بيلمته بمعنى عيد كلا إن لو جورع كريم وعيد كلا عن صلاة لو سمين كريم أو نول شيء غير لما رب يجري عليه أي أمبال لي فريوي إياك نعبد وإياك نستعين عملوي وين وقوله تعالى إلهي ويلي سبحانه وتعالى فصل لربك ربك أجورع وانحر يصلي لربك ربك أتك عفوا وانحر ونجورع وين معناه ماشي حكوجرت وانحر لربك معناه وحويا حذف ثاني لدلالة الأول وين متك هراء يا قدام بالك جوي كان هراء كتصينا إني كجرت ماشي بك جورع
amar baa lagu bixin in rabbi loo gowraco subxaanahu wa tacaala sida amar loogu bixi salaadaba in rabbi keligii loo tukado subxaanahu wa tacaala. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال وحير حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إي ورمي بأربع كلمات أفر كلمة أي نبي إي ورمي هاي كلمة كواد لعن الله الله نعلضه من ذبح لغير لا إله غير نكو جورعه تقربا أقول جورعه وايه أما وح يرها جورعه أما وح بدنها جورعه أما وح وينها جورعه أما وح بورنها جورعه أما وح عاتها جورعه مربى هدي وجورعه عد وح جورعه isagoo ugu dhawaanayo taqarrubna ula joodo ka waxa weeyaan nacalad Allah ku rido la'ana Allah man dhabaha Allah nacalad naxariis Allah ka fogeeyo way habar oo laga dhigi karaa khabarna waa laga dhigi karaa la'ana Allah alla wuba nacalad naxariistu uu ka fogeeyno waa la dhigi karaa kalimada labaad la'ana Allah Allah man la'ana waalidayhi labadiisu waalid ninkii habaaro oo nacalado asagana Allah nacalado way seed u nacalami kara nabiga wala weeyay alayhi salaam markaas wuxuu yiri midkiin wuxuu caaynayaa nin kale aabihi ima hooyadii ayuu caynaa kadibna asaga hooyadii aabihi la cayna marka hooyada iyo aabaha adaa sabab ugu noqday in la caayo sooma maadaama aad sabab u noqoto unu soo jiiday in la caayo hadii marka adigu inaad caaysi ayay marka ka dhigan tahay musabbib baa tahay marka kalimada afaraad waxa saddexaad waxa la'ana Allah allahna ala man aawa muhdithan mid muhditha oo dambiila ninkii soo dhaweysto oo soo duma Allah macna waxa weeyna calado naxariis Allah ka fogeeyo way sida ahlu bid'a oo kalaatu muhdithka mujrim waa lagu fasiraa way waxa kale lagu fasiraa qofka ahlu bid'a qofkii soo dhaweysto ahlu bid'aas qofkii soo dhaweysto asna maxaa la yiraahdaa nacalad Allah ku rido kalimada afraad ugu dambayso wuxuu yiri la'ana Allah Allah nacalado buu nabigu sheegay kaleey salaam man ghayra ninkii badalo manaar al-ardi dhulka calaamaadkiisa meelaha sooydimaha sida beeraha sidii macnaha dhulalka caadi boosaska la degay wixii lamid ah calaamaadka ay leeyihiin dad baabiya jiro oo markaas ay dadku ugu soo durqaan waaya beerta intuu dhaxaysa soohidintii baa la baabi'ini ama meesha calaamadii baa meesha laga saaray ee lagu kala garanayo labada beerood ee labada qof kale leeyihiin kadibna si markaas si hoos loogu soo durqo boosaska iyo bolodyada la degan yahay waa lagu sameeyaa arinta noocaas qofkii sidaa sameeyay nabigu wuxuu yiri calasan nacalad Allah ku rido ama xariista Allah ka fogeeyo marka macluumaadka xadiidka loo keenay waxa weeye la'ana Allah man dhabaha لغير الله إله غير كيكوفك وقورعه واي راه مسلم أي حديث صاري وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري دخل الجنة جنة أياه وحاق على رجل دخل الجنة جنة أياه وقال رجل في ذباب بسبب ذباب تخصي سببتي أيوه قال ودخل النار نارتنا وحاق على رجل ننكل أياه قال في ذباب تخصي سببتي أياه وقال أصنع قالوا وحيدا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله وقالوا وحيدا وكيف ذلك يا رسول الله رسول كي أرتسي كل عدي قال النبي وحيد عليه الصلاة والسلام وياهي وقالوا وحيدا كيف ذلك يا رسول الله رسول كي سيكون عدي قال وحيد مرة رجلان نمبا وحي صامرين على قوم تطبي صامرين لهم قوم كاسوا لهم أسقنا دي أولا صنم بين لهين عابدان صنم كاسوا لا يجوز أن يجد بين أحد قف حتى يقرب له شيئا إلى وحود وهذا sanamkaas oo nimanka maamulkiisa haaya ay ogoleen in la gudbo oo la dhaafo la iska agmaro ilaa wax looga dhawaado wax loo gowraco faqaalu waxay ku dhaheen labadii nimankii maamulka hayli ahadihima labadii midkoodba waxay ku dhaheen qarrib u dhawaaw ma wax ugu dhawaabay ka wada wax u qal sanamkan lama ogol in la gudbo oo la iska dhaafo qaala ninka wuxuu yiri laysa cindi shay'un uqarribuhu abtayda ma ahaanin oo ma haysto wax aan ugu dhawaado qaalu waxay dhaheen qarrib lahu معناه واحد ugu dhawaata qarib lahu u dhawaw bay dhaheen oo waxaad ugu dhawaato walow dhubaban taqsibaha noqday taqsir ba taa soo qabatay faqarraba dhubaban taqsi ayuu ugu dhawaaday fakhallu sabila wadadiisana waa iska siideen waa fasaxeen iska socodeen adig marka dantii laga lahay waa laga gaaree fadakhala an-nar naarta ayuu sidaa ku galay maadaama uu ilaahay qeyrkii wax u gowracay asoo ugu dhawaana waqaalu lil aakhari kii kalena waxay ku dhaheen قرب أدينا ودواو فقال وحير ما كنت أنا مئه لأقرب لأحد شيئا عد قف وحقود دواو مئه بوري دون الله عز وجل ألا كسوكو غير الله فضربوا عنقه وقرت يكدوا أي كجوين فدخل الجنة جنة أيوب قال رواه أحمد أي حديث كان وري هذه كان حديث عجيبة أو تلمامايو إن محل إلها وحال إله غيرك اللي دوانا
وحوي واي حديث كان مركا ولا ليال حديث عجيب ويان وحديث أحمد بوري أبو نعيم في الحلية بكوريا سيدا أدمودين ثواب كطاي حديث إنه موقوف يهيوا سوى مرفوعة ويادد قاركود حوغا سوغان واجران لكن waxaad moodaa inay sawaabku dhowdaa inuu mawquuf yahay oo saxaabiga uu ku joogo asagoo mawquuf marka culimo badan ayaa marka saxiix ka dhigto wuxuu marka tilmaamay labada nin inay macnaha ilaahay qeyrkii oo sanamka ugu dhawaadeen maxaa la yiraahdaa ugu dhawaada la yiri wax ugu dhawaado ninka marka taqsiida ugu dhawaaday xadiidka daahirkiisa waxa ka muuqato marka hore la su'aasha la weydiiba ma dhihin anigu waxba ilaahay qeyrkii ugu dhawaan ma dhihin nin iska diyaarsan oo waxba arkin inuu ahay ba ka muuqato wuxuu yiri laysa cindi shay'un uqarribuhu an ugu dhawaada ma haysto wiil waxlaan un bay haystimo ugu dhawaan lahayd halka ka muuqato saadaradeed markuu ugu dhawaadina oo taqsiihata loo tilmaamo soo heleen naarta ayuu sida ku galay marka nin oo i'tiqaadi in loogu dhawaan karo ayaa ka muuqato ama ninkan kale markii koobaadba inkiraad buu kala horimid wuxuu yiri ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wajal nin ay ka go'anto boohay markay dileen sidaas ay marka jannada ku galay دخل الجنة جنة وحق لرجل في ذباب في بمعنى سبب في بمعنى باوي في ذباب أي سبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب أيوة سجن كوكالي متكلنا نار تو كوكالي قالوا وحيد وكيف ذلك يا رسول الله رسول كلا سيكون عذا هل كاس مركز ضد بدن بالغي يا بين اسدي لاهين محل يرا وحير انت محا دو لين waxyaalaha yaraan taleen waxa kamid shirkiga yaraan malaha way taqsiig oo macnaha wax leeg sameeysa iyo wax ka badan sameeysa iyo wax ka yar sameeysaba shirki waa un shirki weey qala nabigu wuxuu yiri kaleey sallam marra rajulan nabi ma waxay soo mareen ala qawmin dad oo lahum usugnaade sanamu la yajuzu an gudbaynin waayahay ahadun qof hatta yuqarriba lahu shay'an ila ugu dhawaado faqalu waxay li ahadihima qarrib u dhawaw قال وحير ليس عندي شيء أقربه أن أقول هذا ما هيستوي قالوا وحير له أساق قرب ولو ذبابا وحوين مات حتى تقسم لها كسوقه فقرب قول ذبابا يقول فخلوا السبيل ودي سيقبنا نحن حيدا هذو مركب فسحانته اسكتك فدخل النار نار تيونيك كاسدا كوغله ما دام التقرب إلى غير الله بسميه نين لإكراهين ما لما قسبين سيدا كم غطو ومحيالي مركب هرو وحير وحوا ما هيستو مبوشاكا كبالله لكن ميالي مدهن قالوا له waxay ku dhaheen عفوا وقالوا waxay ku dhaheen lilaakhir midka kalena qarib adinu dhawaw faqala wuxuu yiri ma kuntu anigu ma bihiba li uqarriba ki ugu dhawaado li ahadin qof shay'an waxno dun Allah azza wa jal ghayr Allah ilahi anahin faqarrabu unuqahu fadarabu unuqahu qarti ka jareen ay ku dhufteen waa dileen baa laga wada dakhal jannati yanad ayuu galay waaya fi masaa'il baabku wuxuu yiri sheekh masaa'il baa ku sugan rahimahullah ta'ala الأولى مثلا وحاول تفصيل قل إن صلاتي ونسكي آيدا إلا تفصيلي المعنى هذه باكسون الثانية مثلا تفصيل فصلي لربك وانحر تفصيل كذي عدين تيد أي أيضا كسون وصامرا الثالثة مثلا حوين البداءة إن لغب اللابك معنا بالله شو لغب اللوضو باللعنة من ذبح لغير الله إله غيرك عد أقور عدو تقربا أقور عدو إن لعلد لغب اللاب لنعلضه وايه الرابعة مسألة فرض حول لعن من قف إلا نعلضه لعن والديه لبديس والد أسجن نعلضي ومنه حاكمده أن تلعن والد الرجل نينك والد كيس معناها لبديس والد والد كيس إن نعلضه وفيلعن أسجن نقول نعلضه مرك والديك لبدا هذه والد ومس أسنا نعلضه هذا مرك مسبب عن نقطه وسبب النقطه الخامسة مسألة شناد أنك فايسين وحاول لعن من qof in la nacladay way aawa muhdithan qof muhdith soo dhaway muhdithkaas marka hore basaan u soo sheegnay waxa lagu fasiri karaa nin mujrim oo dambiila ina hoos gashato sida qabaa'ilka ku badan qof baa qalad soo sameynay dad soo dilay soo laaynayo kadibna waxa loo sameynaya macnaha magangeli ayaa loo sameynaya waa la qarinaya ayadoo xuquuqdii dadkii ay kula hayeen uu xambaarsan yahay oo aan markaa laga gudin waxa kale lagu fasiraa macnaha qofka bidcooda la yimid oo waxaan sharciga jidaynin markaa ku soo kordhin waa lagu سكسبها نقطة قفكاس إن لنا على ذكره وهو الرجل إنك ويحدث شيئا وحسود درسنا بشيء غيري شيء قاسو يجيء فيه حق الله إلى حق يسوك واجبايا
فيلتجئ مركا ومغنغلايو وهوس غلايو الى من يجيره من ذلك قف كبدباديه او كهور استاغو waxa noocaasa hada say mujrimkii buu ku fasiray qofka dambiga soo galay السابعه السادسه مساله لحاد on ka faayisanayn waxa way lacnu man qof in la nacladay غير بدلي منال الارض دولك علاماتكيسي ايمالها لو kala garto وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وميلها علامتها اي kala saarayso ee kala duwayso بين حقك حق هذا iyo وحق جارك جاركاada dariskaada xaqiisa oo min al-ard dhulka kamid boosaska kalato waa la isku soo durqaa habeenkii dhagaxyada anaana la surtiba la kala qaata beeraha kalato wax walba calaamada marka waxa ay meesha ka saarayeen oo bedelayeen si marka uu boos qof kale uu leeyahay wax uu qaato fatughayiruha waayahay marka aad bedelayso way bitaqdiimin hormarin aw taakhirin calaamadii in dib loo dhigo ama hore loo bixiyo ama kada waayahay taana marka qofkii sameeyay in la nacladay السابعة مسألة تضبان كفايسين وحنا الفرق كالقاضي لكالقاضو بين اللعن المعين قف قوني أو إن معناه شخصية دي سي قوني دي صلونا على ضو إيه ولعن أهل المعاصي إيه أهل المعاصي قدتك معصية صمي قودهان إن معناه الله وأهل المعاصي إن الله نعلضو على سبيل العموم سي قودهان مسألة داس إن لكالقاضو أي شيخ ومركة قبا رحمه الله تعالى لكن وذادك الله مركز قفك ولا نعلضك لسي قونيهان dhahayo oo nusuus kale u daliishanayna marka way jiraan laakiin sheekhu wuxuu maray in la kala qaado qof gooni marka la canadayo iyo dad guud oo waxa ficilka ku kaceen marka la sameeynayo in la kala qaado waaya marka wuxuu yiri waxa ku sugan masalada toddobaad al-farqu kala qaadid la kala saaro oo la kala qaado bayna la'ni al-mu'ayyin qof gooni in la naclado iyo la'ni ahli al-ma'asi dadka ahli al-ma'siyada xumaanta sameey in la naclado ala sabiil al-umum si guud ahaan arintaasna marka sheekhu wuxuu ka qaadanayaa aad mooda qisadii ku soo aroortay aayad markay soo deeyay laysa laka min al-ardi shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibum fa innahum zalimun iyo wixii la midka ayuu marka ka qaadanaya walow culimadu qaarkood ay leeyihiin nusuus kala tilmaamayso macnaha qofka muayyanka hata in la nacladi karo الثامنة مسألة سديدان كفايسين وحوري شيخ بابك هذه القصة العظيمة قصة وين وهي قصة الذباب وقصة معناها التقصية وهي قصة مركة تقصية وهي شيخ مركة وحويا حريكة كيس إنه صحيح كي هاي وعلماء مركة صحيح سي وكميدي هاي أيها كم مغطى محيري مسائل بدن أيوه مركة كل سي ونسائروري وين التاسعة مسألة السجالات وحويا كونه دخل النار بسبب ذلك كون الرجل نينك هاشديس دخل النار وقالي بسبب ذلك الذباب تقصيها السبب تسمه قالي الذي كاسو لم يقصدوا أن أقصد بل فعله أسمي تخلصا من شرهم شرط هذا السوء وفقده وياهي مركا مسألة السجالات شيخ وحيري وحونين كان نارتي أيو قالي وحون كو قالي تقصيها السبب تس كاسو أن أقصد بل وحو أسمي بيري إنه كتخلصه وكفقده شرط هذا marka daahirka sida ka muuqato hadalka sheekhu xadiidka daahirkiisu khilaafsan yahay sababtoo ah xadiidka ninkan u dhawaaw marka la yiri wuxuu yiri waxa ma haayo aan ugu dhawaad waayo taqsi ugu dhawaad baa yiri markii waa soo qabtay ugu dhawaaday waxa ka muuqato daahirka xadiidka inuu ninkan qasad u sameeyay ama hadana qasad u sameeyay hadee mukrih buu noqonaya qofkii hada mesela nin gaal uu soo qabto oo uu yiri awriya gaalow hadii kale madaxan ka jaraya kufri ku dhawaaq inuu ku dhawaaqa u banaan quraanka ku soo aroortay asagan sidaan ku man kafara billahi min ba'di iimanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iiman marka hadii inuu shartooda ka fakado oo ayagu ka badbaado oo taqsiga uu sanamku ugu dhawaaday qalbigiisana iimaan sax uu ku jiri oo marka aan qalbiga ka taqarrub ugu dhawaanin taa kuma gaalowdeen marka daahirka xadiidku waa khilaafsantahay hadalka sheekho musallamna ma aha taas ha lagu baraarugo shuruuxda kalena wada akhrin kartaan oo marka kutubta ka hadashay inta wax ka duwan markay ninkii halana waa ila wadaagi kara insha Allah taala way al-ashiratu mas'alada tobanaad sheekhu wuxuu yiri ma'rifatu qadri al-shirki fi qulubi al-mu'minin way kayfa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kawnihim lam yadlubu illa al-'amal adh-dhahira way waxad mada waqtigi ayaa naga dhacay intaas ayaan insha Allah taala halka 10 hanoo joogo hada billahi tawfiiq sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad